jeeda ilaahu kitaabka ku dhaaranooya wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxaan sheegay waarun Abdul wuu soo fadhiistay YouTube-ka welibana page-ka uu YouTube-ka ku leeyahay Kamal Abdul ayuu ka hadlay isagiyo walaalka kale ee la socdaba kitaabkii Qur'aanka ee Kariimkana wuu la soo fadhiistay isaga oo horteena inoogu dhaartay inuuna hawshan mahtalaka ay u dhigtay hani inay ahayd waxbana uuna ka ogeyn markay u cadaatay 30 daqiiqo kadibna warkanu inoola soo fadhiistay ummadda muslimiinta abuna ka doonaya inay ka aqbalaan xaaladiisa dhageystaan bal ila dhageyso walaalkan hadalkiisa wax ay ii sheegtay ciyaarnay leedahay nin ay kala tageen ama asqab ma jiro ilaahan ku dhaartay ilaahana ii jeedo wuxuu inoo sheegay 2 ragcadood oo salaad ah inuu soo tukaday oo sunno ah isaga iyo walaalkaniba waxa kale inoo sheegay kitaabkii alle inuu inala hor imaaday uu rabo inuu inoo dhaarto inuuna waxba ka ogeyn gabadhani waxayna ay u qarisay inay ilmo dhashay ay u qarisay oo u sheegtay ilmo maana dhalin gabar baan ahay ninna maana soo guursanin ay ku tiri kitaab alle iyo inoogu maray waan ka aqbalay walaal qodobka kale walaalkeen wuxuu inoo sheegay baaritaan inuu sameeyey habaryarteed inuu la hadlay wixii ka agdhawaa inuu la hadlay una caddeeyeen ilmahan inay dhashay gabadhani habaryarteed baa u sheegtay ilmahan gabadhani ayadaa dhashay been maaha waa run ayadaa dhashay warkii waa ii caddaaday ilaahay baana uga toobad keenayaa khaladka iyo gefka aan galay inta aan ku lahaa intaana ku lahaynna waa in la ii qariyee ilaahay inuuna ii qabsanin bilisaani xaalihi buu ka dhahay afkiisa muna ka dhihin dabcan intaa dambe waa kan isagoo inoo sheegaya waxay noqotay in anaga raadin xogyaal badan rasmi ah haddii ay noqoto gabadha familkeeda baryahan dhan inta hadduu inoo sheegay walaalkii kalena wuxuu yidhi aniga laftaydu dhankayga ayaan ka dadaalay oo waxaan sameeyey buu yidhi facebookgeeda dadkii ay commentiga wadaagi jireen inaan wax weydiiyo dadka qaarna wuba inoo magacaabay kuwa kalena na magacow bay dhaheen buu yidhi kulli waxaa la isku raacay gabadhani inay ilmaha ayadu dhashay ninkanina ninkeedii inuu ahaa ayaa la isku raacay ninka la yidhaahdo Abdul saasuu soo ogaaday wiilkii kale saaxiibkii ana saasuu soo ogaaday waa kan isagoo ka sheekeynaya wiilkiina xiriir waxaan sameeyay inaa yani dadka ayada relative-keeda ah inaa xiriir la sameeyo oo yani raadiyo habeenkii aana seexanin marka Kamaal u bandhigay waa maqasheen dhammaantood waylashani waxay inoo caddeeyeen labadooda oo isku duubani xaqiiqadu inay ku soo biyo shubatay hani inay ahayd xaas la qabo ilmahanina ay dhashay walow ay ku dareen hadda miyaa la qabaa oo ninkani miyuu qabaa mise khilaaf baa jira ooy dhaheen welibana inaan ka hadalna ma rabno inaan meesha keennana manaasib maybana nagu ahaynoo annaga hawshanadii ma aha waa runtiin hawshiinna ma aha khilaafka jira iyo wixii jira iyo reerkan inay hadda isku xidhnaayeen xaaladdu waxay maraysaa ilmo la inkiray nin la inkiray aabba la inkiray guur la inkiray jiritaankiisaba la inkiray 8 canug baa la inkiray waxay leedahay gabadhii bal ila dhagaysta markuu waraysanayay saxaaf wax guur ana ma soo marin oo ninkan ka horreeyey Abdul ilmana ma dhalin waatan war gabadhu indha adag may wax aruurana maliya guurna ma soo marin waan maqalay gabadhan maxaan dhihi karnaa war Soomaaliyay mar hadduu wiilkii bannaanka isdhigay oo uu ogaaday xaqiiqadii gabadhan waa hooye ha laga hadho ha loo caqli celiyo ha la waaniyo baaritaan ha lagu sameeyo maskaxiyan inay u miyir qabto oy u fayowdahay ha lagu sameeyo welibana social mediaha
ha laga daayo oo ha la sameeyo bal in gabadhan qaab kale hawsha loogu gediyo. innaga waxayna saarnay labadan reer ee xaaraanta wiilkan iyo gabadhan xaaraanta isugu tegay inaan kala geyno ayaan rabnay. waajib ina saarnaabuuna ahaa man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi fain lam yastadic fabilisaanihi fain lam yastadic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan. annaga mas-uuliyaddanadu waxay ahayd gacan maanan awoodin, carabkanagaan laakiin awoodnay. wadaalika adcafu liimaanu qalbiga inaan ka nacnaa weli maanan gaadhin, carabkaanu weli haysanaa. ujeeddadannadu inaannu hani ceebayna mayna ahayn. ujeeddadannadu inaannu walaalkeen cabduul inaannu wax ka sheegno oon ceebaysanno mayna ahayn. ujeeddadu waxay ahayd muslim baynu nahay, dad islaam ah ayaynu nahay, inaynu xaaraamta qabanno, faaxishadan meesha ka socota aan qabanno, inaan ummadda soomaaliyeed magaceeda lagu ciyaarin, dad muslim ahoo muslimnimo ku dhashay inaan dhaqankoodii lagu ciyaarin, diintoodii lagu ciyaarin, inaan ilmo hooye loo noqday oo la dhalay inaynan inkiraaddoodii iyo nasabkoodii iyo dhalitaankoodii la inkiray inaynu ka hor tagno, ninkeedii inay inkirto inay weligeed is arkeen inaynu ka hor tagno, aabbaheed inay inkirtay inaynu ka hor tagno, inaan kala geyno ayaga. intaasay ahayd diinteenna, dhaqankeenna ayaan badbaadinaynay. marka weerarkanagu halkaasuu ka socday. marka ayadana ha laga gaabsado. waa hooyo, waa sodo, xanuun baa laga yaabaa inuu dhibkan u geeyey, caatifad kaliya shaydaan baa ka ah. waxaan leenahay yaynan ugu kaalmaynin. walaalkan cabduul hadduu inala qaatay, inala fahmay, inala ogaaday xaqiiqadii, alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin. xaaladdu waxay soo gaadhay meel aan xallin, si dhib yar u xallin karnaa insha allah. marka walaalayaal, kuwo badan baa nagu eedaynayey, war waxaan ma hubtaane maxaad u haysataan dadkan. xaqiiqatan anigu kama aanan hadlin qadiyadan muddaan daawanayay, kamaanan hadlin ilaa aan ka daawado aabbihii iyo gabadhiisii najma, aabba cabdisalaan iyo gabadhiisii najma, isagoo uu waraysanayo walaalkeen laakaha oo tv-ga iska leh ama janaalka iska leh, ilaa uu ka waraysto, oo nin yaqaano ahaa, oo gabadha yaqaanay hani, oo reerka yaqaanay, oo la deganaan jiray, oo walaaladeeda yaqaanay, oo cajiib, ilaa aan xaqiiqo ka ogaaday kamaanan hadlin. kuwa inta badan ka hadlayna dadku way iska agdhowaayeen. hal in loo gafo anigu waan diidanaa, kamana hadal. in la dhaho walaal cabduul in lagu sheego inuu yahay qof saaxir ah oo gabadhan sixray, taa in lagu gafo anigu kullaba waan ka soo horjeeday, mayna fiicnayn. laakiin sideedaba haddaad khalad ku dhacdo, cabduulo walaal u dulqaado. wixii ku soo gaadhay jaa'ifo ahaayeedan adiga maaragtay mudnayn, waxaa keenaysay is-adkayntaadii dambe unbay dadku xogaa waxay ka dareemeen nin xumaanta gabadha isagu ka keenay inaad tahay, nin isagu ogolaysiiyey xumaanta inaad tahay, nin reerkeeda ku diray inaad ahayd baa loo tuhmay. wax hagaajiya unbay ka hayd, ee marka wax la hagaajinaya dadku qoloba dhinac bay ka gashaa. marka cabduul waxaan leenahay insha allah wixii meesha kaa soo gaaray waxa kuugu daran waxay ahayd qof naag reer leh oo ninkeedii ka soo tagto marwe ah inay guri kula joogto ood reer ka dhiganayso. dembigii ugu xumaa bay ahayd. laakiin adigu haddaadan ogeyn sidaad noo sheegayso waxba kuma lihid. annaguna taa umaan kaala dagaalamaynay. midda kale waxay ahayd aabbaha la inkiray iyo ilmaha la inkiray iyo zawjka la inkiray iyo wax walba indhacaddayntanay ahayd. indhacaddayntii waa soo afxidhay. allaha ku asturo. walaal cabduul iyo walaalada lamidka aba war xil baa ina wada saaran. diinteenna iyo dhaqankeenna suubanba xaq baa inaga saaran inaan ilaalinno oon u istaagno. social mediahaasi wuxuu inoo noqday maxkamad. idinku waxaad tidhahdeen maxkamad maaha, laakiin runtii waa maxkamad. mararka qaarkood maxkamad buu ka hawl fududay og yahay. maanta waxaa laga yaabaa maxkamad haddii la isla kori lahaa hawsha intaynayna ku soo dhammaateenba. laakiin maanta markii meel walba laga soo dhawaaqay oo la yidhi war ha la kala geeyo reerkan xaaraamta isugu tegay,
reerka burburiyey reer kale soo burburiyey ilma burburiyey waka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walaalkin kitaabka qur'aanka ah gacanta ku soo qaatay shaydaankii iska fiijiyey walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marka waxaan ku leenahay walaalkanaa tahay wixii aan kuu geysanayna naga cafi adigana khayr allah ku siiyo wanaagga aad fahantay allah khayr kugu siiyo waxaan rabnaa qof kasta kullu bnu aadam khataa wa khayru lkhataa'iina attawaabuun qof kasta wuu gafaa kuwa gafa kuwa ugu khayrka badanna waa kuwa ka toobadkeena gafkoodii intaasaan kugu waaninaynaa walaale